maanta waxa waaye qisooyinkii oo salawaadka ayaan idiin soo gudbinayaa insha Allah. Qisooyinkan waa qisooyin aan kasoo wada arooriyey internetka videoyaasha oo YouTube-ka comment-yaasha ku yaalo ayaan kasoo wada arooriyey. Kuwo waxaan kasoo qaaday qisooyin oo Sheekh Bakar Ismaaciil, kuwana waxaan kasoo qaaday Maxamed Al-Xijaazi. Marka waxaan rabaa inaan idiin soo wada gudbiyo kulli waxa waaye 40 qiso. Marka istiyaariya. qisooyinkan waa qisooyin aad cajaa'ib u ah. Waxaa laga yaabaa inaad istirahdaan qisooyinkan markaad dhegeysataan maxaan samayn doonaa talow, hadda istighfaar miyaan sameeyaa mise waxaan sameeyaa salawaadka wad istighfaartana ha joojin. Istighfaarta aad iyo aad muhiim ayay u tahay, laakiinse labadaba isku dar. Okay, qisada koowaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aabahay keliyihiisii ayaa fariisteen. Dhakhtarkuna wuxuu u sheegay in cimrigiisii oo dhan oo keliyihiisa la dhaqi doono. Muuqaalkaaga ayaan hadda ka hor daawanay. Fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaad ka hadlaysay. Sidaa darteed anigii aabahay waxaan bilownay salawaadka ibraahimiyada arbacadii ilaa subaxii jimcaha. Markii aan dhakhtarka ku laabanay, alxamdulillaah keliyihiisi buuxda ayay dib u shaqeeyeen daawo la'aan iyadoo waxba lagu sameyn. Aabahayna marnaba dhaqis uma baahnayn. Subxaanallah. Qisada labaad. Assalaamu calaykum. Waxaan galay dambi dil ah. Qof ayaan dilay. Ilaah naga ilaaliye. Waxaa la igu xukumay qisaas. Waxaa la joogay waqtigii la dili lahaa. Markii aan maqlay fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan si adag ugu dhagay. Arrintani waxay ahayd 12 sano ka hor. Markii la yimid waqtigii oo la dili lahaa, ninkii aan dilay aabihiis ayaa ii yimid oo i cafiyey wuuna isaamaxay. Sidaas ayaan xorriyadeedii ku helay Ilaahay idinkiis. Tan iyo markaas saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam marnaba kama tagin. Qisada saddexaad. Waxaan qabay dhibaato indhaha ah. Dhaqaatiirtii oo dhan waxay ii sheegeen in dhibaatadaas xal lahayn, ayna 5 sano gudahood aragtideeda ay sii daciifayaan ilaa aan gabi ahaanba indha beelo. Markasta oo aan gabar guurkan doonan jiray, reerkeedu way ii diidi jireen. Sababtoo ah runta ayaan u sheegi jiray. Taasna xaq bay u lahaayeen. Ilaa aan u tagay reer, markaas ayay iyaguna ii sheegeen in gabadhooda ay dhibaato kala qabto xagga ilmo galeenka oo aanay weligeed dhali doonin caruur. Caruur ma dhali doonto. Iyaguna daacad bay ii ahaayeen, aniguna waan aqbalay. Guurkii kadib ayaan bartay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam fadligiisii. Markaas ayaan si joogto ah ugu dhagay. Arrintaas waxay ahayd 7 sano ka hor. Hadda aragtideedu waa 100%. Waxaan haystaa 3 caruur ah. Ilaahay idinkiis xaaskaygii way caafimaaday iyadoo aan wax daawo ah qaadan. Aniguna sidaas oo kale caafimaad ayuu Ilaahay indhaha ii siiyey, daawada ma qaadan. taasoo dhan waxay ku timid badsashada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo Ilaahayna waafajiyay. Subxaanallah. Qisada afaraad. Waxaan ku jiray faqri kii ugu darnaa. Waxaan ka imi Suuriya, waxaana u safray Turkiga. Waxaa si joogto ah ugu dhagay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo niyadda ku haya in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isiiyo shaqo fiican oo caruurteeda aan ku masruufto anigoo jooga wadan aan luqadiisa aqoonin, dhaqankiisana aanan aqoonin, qofna aanan ka garanayn. Ilaahay wuxuu ii sahlay dad khayr qaba. Kadib markii aan ku fara adeegay istighfaarta saliga nabiga iyo istighfaarta habeenka waqti dambe fajrka ka hor, waxaan oran karaa wixii aan jeclaa oo dhan Ilaahay wuu ii sahlay. 1 sano gudaheed Ilaahay wuxuu i siiyey wax ka badan 3 milyan oo lacagta Turkiga ah. Waxay u dhowdahay 100,000 oo US dollars. waxaan rabaa inaad xasuusiyo ay ii saamaxo caawan soo gelinaya insha Allah oo tahay jimce. Marka bilaabo salawaadka ilaa iyo birina wada. haddii aad rabtaan wiiga dhan waa wadi kartaan saa jeceshiin idinka. ala kulli xaal aan wada qisada shanaad. Assalaamu calaykum. Waxaan isha ku lahaa buro. Dhaqaatiirtuna waxay go'aamiyeen in isha la iga saaro. Waxaan bilaabay in nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ku saliyo salawaadka ibraahimiyada. Ibraahimiyada waa tan oo ataxiyaad ku jirto dheer. Salaada subaxdii kadib ayaan bilaabay inaan akhriyo. Dabadeedna waan seexday. Waxaan riyo ku arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo agteeda fadhiya, indhahaygana ku tufaya oo ii duceynaya. Markii aan ayaan hurdadii ka kacay, waxaan arkay in buradii isha igu taalay. Waa buradii isha ku taalay. gabi ahaanba wayba ka baxda meeshii mabad ku taalaba. It disappeared completely. waaba way miraqday. maasha Allah. qisada lixaad. Assalaamu calaykum. Waxaan ahaa qof faqri ah. Waxaan ka soo jeeday gobol ka mid ah Morocco.
waxaan aad u badiyay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo niyada ku haya in ilaahay iga saaro faqrigan kadib waxaan guursaday wiil Faransiis oo muslim ah waxaan u safray dibadda ilaahay idinkiis carruur ayaan dhalay halkaas ayaan ku noolaa wax ka badan 8 sano haddana waxaan ahay milyaneer ninkaygu waa nin quraanka xafidsan waana imaam masaajid ku yaala Faransiiska aniguna waxaan ku noolahay nolol aad u wanaagsan oo aad u macaan ilaahay fadligiisa qisada 7 anigu si dulmi ah ayaa Suuriya la igu eedeeyay arrin iga dhigi lahayd maxbuus nolosheeda oo dhan waxaan maqlay fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas ayaan si fiican ugu dhagay ilaahay idinkiisa Allah si nabad leh ayuu iga soo saaray wadankii Syria waxay ahaayeen maalmaha dagaalka kadibna Allah wuxuu riday dawladii Syria oo dulmiga badnayd wuxuuna Allah subhanahu wa ta'ala ehelkeyga ka badbaadiyay gacantoodii taasoo ku timid badsashada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam aniga iyo reerkeena aan sameeynay qisada 8 ilaahay fadligiis muddo ayaan si joogto ah oo si fiican u akhrinayay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka caadiga oo kooban wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ama sallallahu alayhi wasallam waxaan ku celcelin jiray 3,000 oo jeer maalintii ilaahay wuxuu ii sahlay umro iyo shaqo ka yar 2 isbuuc gudaheed haddana ilaahay idinkiis waxaan ku noolahay heer aad uga sareeya heerkii aan ku noolaa 3 bilood ka hor taasoo ku timid ku dhaganaantayda saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan sidoo kale nabiga ku salin jiray qaabka caadiga ah oo muddo 2 saacadood maalintii Allahu akbar qisada 9 waxaa mar walba ku celcelin jiray salaatu ibraahimiya xataa anigoo shaqaynaya anigoo guriga jooga anigoo carruurta la jooga alxamdulillah waan ka caafimaaday buro igu taale 4 sano ka hor saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam mar walba looma baahna in la imaato feejignaan buuxda inkastoo taasi iska fiican tahay haddii qofka uusan si buuxda maskaxdiisa u joogin oo mashquul yahay haddana waa inuusan ka tagin saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam qisada 10 waxaan ku salin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam salaatul ibraahimiyada balse saameynteeda wax yar oo daciif ah ayaan dareemi jiray laakiin markii aan bilaabay inaan ku celceliyo 600 700 iyo tirooyin aad u badan maalin walbaba noloshii si buuxda ay isku bedeshay waqti aad u gaaban gudaheed marka adiga qofkan wuxuu yiraahdo waa salawaadkan waan akhrin jiray laakiin wax yar ayaan sameyn jiray saameyn badan ma igu lahayn laakiin markaan badiyay ay noloshii isbedeshay waxaan la deganaa reerka ninkayga oo guri aad ciriiri ah ayaan la deganaa meel aan wax ku karsado xataa ma haysan musqusha reerkana ama suuliga reerka dhan ba isla wadaagi jiray laga bilaabo isbuucii ugu horeeyay oo aan si joogto ah oo daacada u akhrinay salawaadka ibraahimiyada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay ninkayga arrimo waasac ayuu siiyay wuxuu helay shaqo fiican tii ka fiicneed u haystay waxaana la siiyay lacag fiican oo koos ah oo dadka markay shaqada ka tagaan la siiyo ayaa gacanta loo saaray kadibna wuxuu noo iibiyay guri aan weligii ku riyoon waan guurnay gurigiina wuxuu noqday mid waasic ah oo anaga noo gaar ah qisada 11 assalaamu calaykum waxaan qabay xanuuno yaab leh wax daawo ahna ima taraynin xitaa dhaqaatiirka ma garanaynin waxay hayay markii aan si sax ah oo joogto ah u akhriyay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba tan ibraahimiyada oo dheer oo fadliga badan anigoo ugu yaraan 1200 ilaa 1600 oo jeer ayay akhrin jiray Allah wuxuu iga caafimaad siiyay xanuuna oo daawo loo waayay sidoo kale ilaahay wuxuu siiyay maal baraka leh tan iyo waqtigaas jeebkayga lacagba kama marna markas way buuxdaa jeebkayga Allah mubaarak qisada 12 waxaan maalin kasta akhriyi jiray suuratul baqara gaar ahaan salaada habeenka markii aan galo waxaana lahaa dhibaato aan Allah ka baryay inuu iga dulqaado markii aan salaada dhameeyay qalbigayga waxa ku soo dhacay inaan si joogto ah ugu dhago saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam 24 maalmood kadib arintii aan Allah ka baryay muddo ka badan 1 sano ilaahay wuu ii aqbalay arintii way dhacday qisada 13 waxaan ahaa qof waxba haysan waxaan jeclaa inaan shaqo helo inkastoo aan wax shahaado haysan waxaan go'aansaday inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam ku saliyo salaatul ibraahimiyada isla markaana maalin kasta aan bixiyo sadaqa yar Allah ka dhigay $1 riyaal alxamdulillah waxaan ka helay shaqo iskuul fiican oo aad iyo aad qaali ah oo aad loo qadariyo ayaa macallimo ka helay inkastoo aanan lahayn shahaado jaamacadeed arintaasna waxay ku dhacday wax yar
hal bil gudaheed. qofkan kale wuxuu yiri qisada 14aad waxaa maalin kasta akhriyi jiray suuratul baqara aniguna waxa ahaan qof aan uur qaadi karin waxaan ka soo hadlayaa Kuwait dhaqaatiirta oo dhan waxay ii sheegeen inay suurtagal ahayn inaan carruur dhalo xitaa haddii qaliin la igu sameeyo sababtoo ah waxaan qabay dhibaato dhinaca ilmo galeenka ah markii aan si joogto ah u bilaabay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam si dabiici ah oo natural ayaan uur qaaday anigoon waxba qalitaan gelin ilaahayna wuxuu i siiyay 2 gabdhood ma sha Allah qofkan kale wuxuu yiraahday qisada 15aad waligay nolosheeda umro ma aanan tagin aad ayaan u jeclaa waxaa ku dhagay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam salaatul ibraahimiyya hal bil kadibna ilaahay wuxuu ii sahlay umro oo si buuxda ayaa la ii kafaala qaaday anigoo waxba aan bixin 3 sano kadib inkastoo aan qabay dhibaatooyin xagga carruur dhalida ilaahay wuxuu i siiyay carruur sidoo kale dhibaatooyin badan oo nolosheeda aan kala kulmay si degdeg ah ayay u xalismeen taasoo ku timid badsashada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay idinkiis qisada 16aad waxaan qabay murugo aad u weyn oo aan dareemayay 20 sano oo dhan waana arrin dhaxal ah waxaan maqlay fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan salaatul ibraahimiyada waxaan bilaabay inaan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam laga bilaabo maghribka khamiista ilaa iyo duhurka jimcaha waa markii u fiicnad bujoojiyo qofkaas markaas ayuu walaalkii i soo wacay wuxuuna ii soo celiyay dhaxalkeygii oo awal frozen ahaayo meel lagu hakiyay ayadoo 500,000 riyaal oo Sacuudi ayaa la ii soo celiyay qisada 17aad waxaan ku jiray imtixaan aad u weyn wax walba waxay ila ahaayeen waxaan macquul ahayn waxaan maqlay fadliga salawaadka ibraahimiyada markaas ayaan si adag ugu dhagay habeen iyo maalin ayaan ku celcelinayay 4 maalmood ka hor intaysan dhamaanin arrinteedii si buuxda ayuu ilaahay ii xaliyay waxaan sidoo kale xasuustaa nin la xiray taleefankiisii laga qaaday sababtoo ah wuxuu keeni jiray dhibaatooyin taleefankaas isaguna si joogto ayuu akhrin jiray salawaadka ibraahimiyada 3 maalmood ayay isku dayeen in taleefanka furaan balse way sameyn waayeen markii la sii daayay taleefankii ayaa ninkii loo soo celiyay isla markiina hal mar ayuu isku try gareeyay wuuna furay taleefankii qisada 18aad assalaamu calaykum waxaan jeclaa inaan ka shaqeeyo Sacuudiga laakiin waxba ma haysan passport ma haysan shaqo ma haysan shahaado ma haysan waxba ma lahayn markii aan maqlay fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam si adag ayaan gacmaha ugu dhagay waxaan ku saliyi jiray maalintii 5,000 oo jeer 2 bil kadib ayaan la kulmanin jooga Sacuudiga wuxuuna igu yiri kaale ila shaqeey Madiina hotel ku yaala xaramka hortiisa isaga ayaa ii diyaariyay waraaqihii oo dhan oo sharciga lagu galay wadanka oo lagu sameeyay wax walba wuxuuna noqday sababtii safarkayga hadda 4 sano ayaa ku noolaa Sacuudiga taasna waxay ku timid badsashada nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahi fadligiis qisada 19aad dhibaato weyn ayaan dhaxmarta aniga iyo ninkeyga beetir gabadhaan waana kala tagi lahayn arrintu waxay gaartay heer furiin aniguna ma aanin rabin in la ifuro waxaa habeenkii oo dhan afkeyga ka saari waayay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan ducada dhexdeeda iyo qiyaamka habeenkii wallaahi Allah qalbiga ninkeyga wuu bedelay inkastuu ku adkeysanaya furiinka uu bilaabay processkii lagu furi lahaa markaas ayaan gurigeyga ku soo laabtay ilaahay idinkiis kadibna markii uu qarka u saarnaa inuu gurigeyga burburo ninkii qalbigiisa u dagay furitaankii wuu joojiyay okay qofkaneeto qisada 20aad ninkeygii wuu i dayacay wuxuuna i geliyay xaalad aad u adag waxaan ku dhaweyn furiin nasiib darro wuxuu ku socdo dariiqad qaldan markii aan maqlay fadliga salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam especially ibraahimiyada waxaan bilaabay inaan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo niyada ku haya in ilaahay ninkeyga ii hagaajiyo oo ani isagana heshiino ilaahay idinkiis waxaan dib ugu laabtay ninkeygii wuxuuna iska daayay balwadii ama xiriirkii ula lahaa dumar kaleeto waxaana noqonay qoys degan oo qabow xitaa sanadkan waxaan aadnay xajka qisada 21aad waxaan ahaan jiray nin aad taajir ah sababtu waxay ahayd waxaan ahaa nin aad u badsada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan ku saliyi jiray qaabka caadiga ah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad intii aan taajirka noqonay oo dhan waxaan akhrin jiray maalin kasta 1,000 jeer markii lacagta iga badatay ayaan mashquulay kadib waxaan ka tagay salawaadkii
muddo 3 bilood ah markaas ayuu ilaahay ugu imtixaamay faqri socday 3 sano dhan faqri ayaan ku dhex jiray kadib mid ka mid ah ehelkayga ayaa riyo wuxuu ku arkay nin cadaan ah sidii malag oo kale isagoo leh u sheeg hebel anigu iga wadaa inuu ku laabto saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay taas ayaa uga khayr badan adduun iyo aakhiraba runtii dib ayaan ugu noqday salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas ilaahay idinkiis wixii iga lumay oo dhan way ii soo noqdeen alxamdulillah qisada 22 assalaamu calaykum waxaan qabay kansar ilaah naga xijaab dhaqaatiirtuna 5 jeer ayay baaritaan igu sameeyeen si ay u xaqiijiyaan waxa kadib aan bilaabay si daacad ah salawaadka ibraahimiyada alxamdulillah si buuxda ayaan u caafimaaday anigoo wax daawo laygu sameynin markii aan dib ugu laabtay dhakhtarkii 5 jeer ayuu tijaabadii ku celceliyay oo imtixaankii dhiigi iga qaada wax walba fiiriyay sababta abuu rumaysan waaye in ilaahay i caafiyay anigoo wax daawo aan qaadan subxaanallah qisadii 23 anigu waxaan ka mid ahaa dadka aan rumaysanin in saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam uu waxyaabo aad u waaweyn iska ka bedeli karaan waxaan bilaabay inaan akhriyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam 21 biro oo isku xigta muddadaas gudaheed 4 arrimood ayaa igu dhacay mid kastana bilowgiiba waxay ila ahayd wax aan macquul ahayn ilaa heer ee maskaxdayda rumaysan weyday waxaan dareemay sidii inaan haysto faraantigii nabi Suleymaan ama feenustii oo Calaawdiin markasta oo aan nabiga ku saliyay sallallahu alayhi wasallam waliba salaatul ibraahimiyada ilaahay wuxuu ii furfuray mid ka mid ah dhibaatooyinkii igu adkaa waxay gaartay heer in wax ka yar bil gudaheed in ku dhawaad 90% ilaa iyo 99 wixii dhibaato aan haystay oo dhan ilaahay ii xaliyay oo waxba ii kala furfuray subxaanallah qisada 24 waxaan Allah ka baryayay wax ila ahaa mucjiso 5 sano dhan markii aan maqlay salaatul ibraahimiyada ducadeedii oo dhan waxaan ka dhigtay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahayna 2 isbuuc gudahood ayuu ii aqbalay ducadeedii qisada 25 waxaan lahaa baahi socotay 4 sano waxaan sameeyay ay wax aan sidan ku heli lahaa arintaas laakiin mar walba waan ku fashilmi jiray Allah wuxuu igu hanuuniyay akhrinta suuratul baqara maalin kasta iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam salaatul ibraahimiyada 2 bilood iyo bar kadib ducadii aan 4 sano soo waday hadda la iga aqbalay markaas qisada 26 waxaan ahaa qof indhala waxaan qabay dhibaato xagga isha ah waxaan ku saliyay jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam 500 jeer waxaan dhihi jiray xataa xawqalada 500 jeer sidoo kale istighfar ayaan akhrin jiray 500 jeer kadib markii aan 3 bilood joogtay adkaartan qaliin ayaa la igu sameeyay qaliinkiina waa lagu guuleystay alxamdulillah maantana ilaahay aragtideedii uu ii soo celiyay qisada 27 waxaan lahaa arrin iga xayirneed oo noqotay wax aan macquul ahayn albaab kasta wajiga ayaa la iga dhufan jiray muddo 12 bilood laakiin 7 maalmood kadib markii aan ku fara adeegay salawaadka ibraahimiyada dhibaatadii si buuxda ayaa loo xaliyay qisada 28 waxaan qabay walwal weyn oo wax aan xal u waayay ahaa laakiin Allah agtiisa wax walba waa macquul waxaan ku dhagay salawaadka sallallahu alayhi wasallam 200 jeer maalintii iyo markastoo aan firaaqo helana waan sii badin jiray anigoo yaqiinsan in walwalkayga la iga saari doono ayaan seexday markaan soo kacayne waxaan arkay arrintii oo habeenkii ilaahay igu xaliyay anigoo xataa fara aan gelin oo waxba aan ku darsan oo waxba aanan samayn arrintii ilaahay wuu ii xaliyay qisada 29 waxaan ahaa qof dibadda jooga oo deganaanshaheygii ka dhacay waxaan u baahnaa cusboonaysiin iyo kafaalada in la bedelo oo ku kacisay 44,000 oo riyaal aniguna shaqo ma aanan haysan xilligii koronada qof baa igula taliyay inaan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam riya ayaan ku arkay qof ii sheegaya ku dhag saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waa badbaado 2 isbuuc gudahood waxaan helay shaqo kafaaladiina waa la ii bedelay oo qof kale aan ku bedeshay deganaanshihiina 4 sano ayaa la ii cusboonaysiiyay anigoo aan shilin bixin qisada 30 waxaan shaqo la'aan ahaa 9 sano waxaan ku dhaganaa salawaadka ibraahimiyada ilaahay fadligiisa 4 maalmood oo kaliya oo gudaheed ilaahay wuxuu igu siiyay shaqo mushaharkeedu uu ahaa 15,000 oo riyaal
31 waxaan ahaa qof ina lahayn lacagna ma aanan haysan ehelkaygiina way dayaceen waxaan ku dhagay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam muddo 4 bilood alxamdulillah Allah wuu caafiyay aragaygiina wuu ii soo celiyay gabadhaydina way ii soo noqotay bedelkii ehelkayga iga tageen dad qaar waxay yiraahdaan waxa kugu dhacay waa wax aan caadi ahayn laakiin waxay ahayd ilaahay fadligiisa iyo batashada salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam 32 waa la isixray markastoo aan suuratul baqara akhriyo waan xanuunsan jiray waxaan maqlay in salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam sabab u noqdo burburinta sixirka markaas ayaan habeen iyo maalin ku akhrin jiray 2 isbuuc kadib waxaan riyo ku arkay qofkii isixray iyo meesha sixirka la dhigay waan la helay waa la furfuray isbuucaas intaan dhamaanin shaqo ayaan helay kadibna meherkaygii ayaa dhacay qisada 33 assalaamu calaykum mushaharkaygu wuxuu ahaa 2,000 oo riyaal waxaan ku dhagay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba tan ibraahimiyada iyo suuratul baqara hal sano ka hor intaan dhamaanin mushaharkaygii 10 laab ayuu noqday wuxuu gaaray 200 oo kun oo riyaal 34 waxaan tukan jiray salaatu duha kadibna gacmaha kor ayaan u taagi jiray waxaan nabiga ku salin jiray salaatul ibraahimiyada 20 ilaa 30 jeer kadibna waan duceysan jiray dabadeed mar kale 20 ilaa 30 jeer ayaan ku celin jiray salaat ibraahimiyada haddana waan duceysan jiray muddo 40 daqiiqo ayaa saan ku waday runtii arrin aad u weyn ayaa ilaahay ii dhameystiray oo ii aqbalay dadka igu dhawaayo dhanna aad bay ula yaaban yihiin arrintaas ee u dhacday qisada 35 waxaan aad u jeclaa inaan ka guuro apartmentiga aan deganaa oo aan bedelo alaab guriga taalay dhan laakiin ninkaygu diiday intii lagu jiray fasax 2 isbuuc waqtigii oo dhan waxaan u qaatay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan akhriyo waliba ibraahimiyada ilaahay wuxuu sababay in ninkayga oo ka shaqeynaya Sacuudiga uu ii soo diro 10,000 oo riyaal si aan u iibsano alaab guri cusub una gurno guri kaleeto apartment kale arrintaas oo dhan hal bil gudaheed ayay ku dhacday qisada 36 waxaan lahaa waxaan aad u rabay 13 sano oo dhan wuxuuna ila ahaa wax la moodo riyo ama khayaali saaxiibtii ayaa igu tiraahday nabiga sallallahu alayhi wasallam ku salli intaad awoodo damoor aad badsato iyo damoor ilaahay uu ku fududeyn doono waxa aad rabto hadalkeedii waan aaminay markaas ayaan si joogto ah ugu dhagay salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam 2 bilood ka hor inta aanan dhamaanin arrintii oo impossible ka ahayd oo aad u adkeed oo macquul ila ekeen baa ilaahay run iiga dhigayo ilaahay maxaan dhameystiray 37 arrin ayaan lahaa markaas ayaan bilaabay salawaad ibraahimiye muddo 5 bilood ah si joogto ayaan u waday salaad kasta nabiga ayaan ku salin jiray 100 jeer sallallahu alayhi wasallam alxamdulillah bishii lixaad 2 baahi ayaa ii rumowday oo ilaahay run iiga dhigay uur ayaan qaaday anigoo sanado badan la qabo shaqo mushahar fiican oo aan filanayna waan helay halka u dhaxaysay aniga iyo meesha aan ka shaqeynayna 5 daqiiqo kaliya u dhaxaysay oo safar dheer ma aan gali jirin kan shaqeynayo qisada 38 waxaan maqlay qisadaada oo ku saabsanaa xabsiga oo aad ka soo baxday aniguna waxaan qabay dhibaato socotay sanad iyo bar waxaan ku dhagay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka caadiga ah muddo 9 maalmood oo xiriir ah oo aan kala goyn 9 maalmood kadib alxamdulillah dhibaatadii si aan maskaxdeeda ugu aan ka fiilanayn oo aan ku soo dhicin ayuu ilaahay igu xaliyay inkastoo ay ahayd arrin igu keeni karta in xabsi aan ku dhaco oo la igeliyo qisada 39 waxaan sugayay war muddo 3 bilood ah waxaan islahaa waa wax aan dhici karin warku wuxuu ku saabsanaa walaalkii oo ku lumay Suuriya war kama haynin waxaan bilaabay inaan si fiican u akhriyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam muddo 3 bilood ah ilaahay idinkiis walaalkii si nabad ayuu noogu soo laabay qisada 40 waa tii u dambeysay waxaan ku jiray xaalad faqri ah oo caadi ahayn waxaan ilaahay weyn ka baryayay maal sababtoo ah aad baan baahi weyn u qabay waxaan maqlay fadliga salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas ayaan si joogto ah ugu fara adeega saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam laga bilaabo jimco ilaa iyo jimcaha kale 4 maalmood kadib maalinta talaadadii ilaahay wuxuu siiyay 7,000 oo riyaal jimcihii xigtana ilaahay wuxuu siiyay 4,000 oo riyaal meel aan ka filanayn waxay ka timid hadiyad
oo aan ka helay walaashay oo ku nool Sacuudiga iyo seedigay oo isna ka shaqeeya Sacuudiga. Marka qisooyinka intaan bay ku eg tahay. Insha Allah khayr baan isku ognahay. Aniga ii soo duceeya in Ilaahay muraadkayga noo sahlo, in Ilaahay waxaan jeclahay na siiyo, Ilaahay jannada nagu kulma siiyo. idinkana Ilaahay muraadkayga ii sahlo, caafimaad ina siiyo qofkii xanuunsan, qofkii gaajo iyo dhibaato iyo silic ku jiraan in Ilaahay maaragtay idinka baabi'iyo. Ilaahay in uu caruurtan xiran oo magafayaasha haystaan Ilaahay ka soo furfuro, caruurtan nabad ku soo celiyo oo waalidkooda jecel u soo celiyo. kullu u soo duceeyo qofkii dhageysanaya insha Allah, anagana isku soo wada duceyno kulligeen. Markii qisadii ku saameysay ilaa intaan daa soo gaartay khayr Allah ku siiyo. qisadii ku saameysay bal noogu soo sheeg hoos. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.